daawade ku soo dhawow channelkeena Sportiga fadlan si aad u hesho macluumaadka ugu dambeeya ciyaaraha subscribe saar channelkeena gambaleel kala furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela muuqaaladeena cusub السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة ونكسن صاحب بيال ميل كاستا ودنيا دكا جوجتان كسر وهذا ما أنت يو ورك وين عيار هاي channel كده وأنا سوق هذا دونا عيارها بحالي عياري وحيابها لقلي هاي مانشستر يونايتد ويلكودا برونو فرنانديز والله أمانة يو بوكايو ساكا يسوون عماد بيدسوا الله بحي استبل اللي هيو أرسنال عيار تيدي عياري كره حالي دعونا سوق هذا دونا لاعب كعصبة كحضر برشلونة الله صوب بندقي لينيل ميسي يدقال كلام حي مدحوينها برشلونة iyo qodobo kale ayaanu ku soo qaadan doonaa maanta warkeena kan ee ciyaaraha hada saaxiibana ku cusubtaa noo subscribe si aad u hesho waqti kasta iyo saacad kasta macluumaadka ugu dambeeya ciyaaraha maalin wanaagsan baan leeyahay jimco wanaagsan saxaabay meel kasta waa dunida ka joogtaan bal ciyaarihii iyo maanta wararka ugu dambeeya ciyaaraha kala iibsigii ciyaarihii xalay la ciyaaray waxyaabaha laga leeyahay recordski iyo taariikhii bal markaan aan waagno xalay waa la qamiisaynayo waa la qamiisaynayo Arsenal baa ciyaaraysay iyo Manchester United iyo Inter Milan iyo Ajax waa la wada ciyaarayo waanu waxa isbuuc kamal daariyo soo socday xal ku soo gabagabay wuxuu waxa isbuuc mashquul badan buu ahaa ciyaar waanu la nasan isbuucan hadaba isbuuca soo socdana still wali Champions League baa sii jiri doona horyaaladii marka laga yaabay habeenka Isniintu in la nasan karo ama waxay ku qorsheysan tahay ciyaaro qaar waynu arki doonaa kolley balse xalay wala Europe League iyo Manchester United waxa ay soo heshay gool away oo barajo waxay gool iyo gool la soo dhaafweysay kooxda Baraqa inkasto xalay gool hayay Liverpool ka tagay AC Milan uu gool ku caawiyay Manchester isagoo gool haya waxaana goolka ka dhaliyay Danis oo kubadu dhaafsiyay gool hayaha Manchester Romero qalad galay oo soo baxay buu ka dulqaadayo يا تاسو عيارتو lagu eedeeyay Emmanuel Danis ayaa dhibaya kooxii hore ee Ronaldo soo ciyaari jiray waa nin u dabaaldegay sida Master Lama joojiyo kale Real Madrid intuu kaga dhaliyay gool Champions League sidii Cristiano ugu dabaaldegay hal wuxuu gool ka dhaliyay Manchester United marka Manchester gool iyo gool bay gashay Martial ayaa dhaliyay goolka bareejaha ciyaarta oo ka dhigay gool iyo gool Manchester lugta koowaad waxay ku soo gashay bareejo away oo waxayna soo heleen gool away bay soo heleen fursad fiican bay u haystaan lugta labaad ciyaarta iyadoo xalay Bruno Fernandes inta yar ciyaare uu banig fiican sameeyay Bruno nin banaanka yaala weeyaan ninkaas laalaab ku jiro wuxuu yahay wuxuu galo dhan kalena xal waxa la arkayay Gatef oo Ajax garaacaysa 2 gool iyo ever baa lagu garaacay kooxda Ajax oo gurigooda waa u dhiman halka Inter Milan ay 2 ever ku garaacday xalay Lodgars waliba ninka la yiraahdo Erikson ayaa dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay Inter Milan xitaa Lukaku ayaa shabaq soo taabtay waliba iyana xalay Arsenal ayaa gool ibar ku adkaatay oo Alexandro Lacazette ayaana gool ku dhaliyay isagoo ka caawiyay wiilka da'da yar ee Bukayo Saka marka waa ka xalay ciyaari dhacay ayana Arsenal iyagoo banaanka jira way soo guuleysteen oo Arsenal fursad bay u haystaa wareegga xiga inuu soo gudubto walla Inter iyo Manchester United iyo Arsenal hatta Wolves ba iyagu xalay adkaaday xalay waa la wada badiyo kooxahaas waxay isku day doonaan inay sanadkan u tartamaan koobka kan ee khamiisleyda ama Europe League Wolves ku dheedo xalay 4 gool bay ku badiyeen Jota ayaa 3 lay xalay dhaxdhigay shabaqa waninka khatarta badan ee aan caadiga ahayn marka waa kaayo xalay ciyaari la ciyaaray khamiisleyda Europe League kollay waa kaayo waxa ay haayeen ciyaar xiisa badan oo kaliya maanta baa la nasanaya haddana bari waxa soo laabanaya ciyaarihii toddobaadkan ciyaar xiisa badan baa iska jiri doona bari oo kale 9 saac iyo barka ama 3 galabnimo iyo barka waxay hay'ad Tottenham iyo nimanka Chelsea baa is haya oo bridge baa lagu ciyaari doona waliba habeen dambe waxay sii haya 8 iyo barka Manchester City iyo Leicester baa is haya wala isbuuc ciyaareed weeyaan ciyaarid weeyano waliba la liigi isaguna qudhiis waa la ciyaarayaayo oo kooxaha la liigu moogtay Champions League ba isbuucan wada ciyaarayaan min Real Madrid iyo Barcelona oo kale saasdaraadid oo kale Barcelona oo kale habeen dambe oo kale wax weeyaan 6 maqran bay ciyaari doonaan oo Eibar la ciyaari doonaan saxiixa cusub ee Braithwaite baana in kulka ciyaar suurtagal ay tahay habeen dambe Real Madrid Levante baa la geeyay kollay waa ka kooxuhu qaar ba ciyaarahooda waa loo sii horumarinayaa Italiyaanigiina oo Milan iyo Fiorentina baa jiri doona Juventus Asbel Ronaldo iyo qudhood waa loo horumarinaya ciyaartooda marka wali isbuuc ciyaareed oo kale ayaan filaynaa kuwa waxay yihiin ciyaaraha biri dhacay bal maxaa laga leeyahay ciyaari xalay dhacay wiilka da'da yar Arsenal u ciyaaray Bukayo Saka niyo Bukayo caadi ma ahan Bukayo Saka caadi ma ahan adiga Bukayo Saka magaciisa yaanu ku wareerin war adduunkan magac qurxan wax waa laga waayay magacyada wareersan baa bariyaha wax lagu helaa Bukayo Saka wana isaga kaftamaynin mooyaane Bukayo Saka
يا لاعب واللاعب بوكايو ساكا تضبط كان waxaan arkay gool uu ka caawi Bebe ninka laba difaac soo wareystay baan arkay garabka soo ka yimaaday xalna goolka uu caawi Bukayo Saka waxa uu leeyahay waa ciyaartoyga ugu caawinta badan Arsenal xilli ciyaareedkan wuxuuna ka caawin badan ciyaartoy kasta waxaanu jiraa 18 sano oo Bukayo Saka xilli ciyaareedkan 8 gool uu caawi waa ninka ku soo xiga Arsenal jooga waa Bebe oo 7 gool caawiyay Martinelli 4 gool caawiyay Chambers 4 caawiyay Gendouzi 3 caawiyay ila Gaseto 3 gool caawiyay waa ninka ugu daadiyay Arsenal 18 jirka haddana sameeyay caawinta ugu badan weeyaan marka Bukayo Saka عادي ما هي قاي بوكايا وويل مستقبل له ستيفن جيرارد وجعليها يا قاي سووا انه سميو كمباكا waxaan ognahay habeenkii 2004 Champions League in Liverpool ay comeback ku sameysay kooxda kubadda cagta Olympiacos 2005 Steven Gerrard baana ka dambeeyay mid taayo habeenkii Milan ee 2005 comeback bay Steven Gerrard u horseeday Liverpool oo ay Milan comeback ku sameeyeen habeenkii West Ham ee 2006 comeback asaga ayaa qayb ka qaatay weyn xalina Braga ayuu comeback ku sameeyay Steven Gerrard sanada 2020 yani xali kooxdiisa Rangers oo 2 gool looga horeeyo ayaa 3 gool ku badishay comeback uu jecel yahay ninka marka waxyaabaha kale iyana xalay laga arkay ciyaarahayna waxa kamid ah Clasico waa soo dhawaaday kulay 9 maalmood oo qurba ka harsan ka shalay lambar 10 baa la soo bandhigay 10 maalmood ka harsaneedo kulay Clasico 9 maalmood qurba ka harsan wala haya Real Madrid iyo Barcelona kii badiya ayaa hogaanka u xari doona ama hadda Madrid ba hal cod ku hogaaminayso kulay Clasico wala tiriya mugta waa kulanka ugu awoodda weyn dunida weeyaan koonka ugu fiican weeyaan shalay 10 baa ka harsaneed maanta 9 weeyaan Rodri todobaadka waxa la yaabay bandhig ugu sameeyay ciyaartii West Ham waxa uu sameeyay kaligiis baas ka badan dhamaan ciyaartoyga West Ham u ciyaaray oo kaligiis wuxuu dhameystiray 178 baas dhameystiran buu sameeyay taas oo ka badan ciyaartoyga West Ham ee City ka hor imaanaya oo kaligu waxay sameeyeen 169 baas oo dhameystiran bay sameeyeen kaliya Rodri ayaa ka gool ayaa ka caawin ayaa ka baas badnaayo xataa marka laga hadlo dhanka goolashu isaga ayaa habeenka gool iyo waanu dhalin gool Arsenal bariyaha way soo raanaysaa difaac uu roonaanaya difaacooda xal waxay kulankii saddexaad xiriir oo Arsenal ay shibqood ilaashanayeen markii ugu horeysay 10 April 2019 waliba la soco Bukayo Saka waa kan ugu caawinta badan xilli ciyaareedkan Europe League oo wuxuu ka sameeyay 5 caawinood ogowna waa nin kale ugu caawinta badan kooxda Arsenal cunuga warkiisu caadi ma ahan waliba Bruno Fernandes xalay in yar oo ciyaartu soo galay ayuu dar wuxuu ku sameeyay wacdaro Bruno way iska caddahay inuu yahay laacib cimaamadiisa aan la haysan karin warma Bruno man ka hadlaynaa warwaaninkii 32 gool liyowga haya kama hadlaynin ninka waa nin qatar badan xalay inka yar isagoo ciyaaray hadda waa in yar isagoo xalay ciyaaray ayuu hadda uu cadareeyay ciyaartoyga lagu magacaabo Master Bruno Fernandes oo ciyaartoygu wuxuu sameeyay baa leeyahay shuudadka badan dhamaan ciyaartoygii kooxda Manchester United u ciyaarayay isagoo xataa waliba ku yimaaday badal ciyaartoygo isagoo badal ku soo galay ayuu haddana wuxuu sameeyay ninka la yiraahdo Bruno Fernandes shuudad ka badan dhamaan ciyaartoyga Manchester garoonka ugu jirayo oo markuu soo galay kadib 4 darba ayuu goolka ku toogtay isagoo kaliya daqiiqad soo galay ciyaartay daqiiqadii 81 buud 4 shuud sameeyay taasoo ka badan ciyaartoyga Manchester oo dhan waliba xilli ciyaareedka 2 gool haya baa Manchester gool ku caawiyay yani iyagoo gool hayaala ay kubad Manchester ku caawiyeen oo kubad ay baaseen baa wariyahano ay dhaliyeen mid waa Alisson midna waa Simon Yoley oo gool hayaashii Liverpool baa xilli ciyaareedkan qura ku sameeyay Manchester inay gool ku caawiyaan waa Alisson oo Liverpool ciyaartii Manchester ku sameeyay Salah u caawinay iyo Man Yoley xalay caawiyay goolkii Danis uu ka dhalinayay kooxda Manchester Europe League laakiin Marshall xilli ciyaareedkan wuxuu ka mid yahay xilli ugu fiican oo xilli ciyaareedkiisa ugu fiican asagu wuxuu ahaa 215 marka uu 17 gool dhaliyay halka xilli ciyaareedkan uu marayo 14 gool waliba Emmanuel Danes ayaa ninka bariyahan dhibaya kooxii Cristiano Ronaldo soo ciyaari jiray waliba sidii odag oo kale ugu kor dabaaldegaya iyaga Real Madrid xilli ciyaareedka 2 gool buu ka dhaliyay Emmanuel Danes walibana uu kaga dhaliyay tartanka Europe waliba sidii Cristiano Ronaldo oo kale ugu dabaaldegay kadibna xalay Manchester United buu ka dhaliyay Emmanuel Danes oo uu ka dulqaaday gool qurux badan gool hayaha lagu magacaabo Romero laakiin satana waxay markii ugu horeysay tartamada oo dhan markii ugu horeysay muddo dheer kadib in laba ciyaar isku xiga oo xiriir ah uu Arsenal u dhaliyo gool tartamada oo dhan Lukaku ayaa isaguna xalay gool ku dhaliyay wuxuu ka dhignaa in Lukaku 6 ciyaarood oo xiriir uu gool ka dhalinayo Europe League ciyaartoyga ugu dambeeyay sida ka sameeya wuxuu ahaa Alan Shearer oo 8 ciyaar xiriir ka dhaliyay Europe League yani tartanka kan xiriir ugu dhaliya 8 ciyaarood kan hadda 5 ciyaar xiriir uu maraya wiilkan yar xalay Arsenal Burhan buu ahaabaan u malaynayaa macnuhu way u cimaamadeen wiilka yaro waa wiil yar oo aan wali maskaxdiisa kala go'in oo aan garanayn markii caruurta kale ee saf kale la galo markii saf galku dhamaado caruurta kale garoonka way ka ordaan laakiin wiilka maanu garanayn hadii caruurta kale garoonka ka baxaan
in uu raaco iyagu daba ordo garoonka ka baxo balse isagu uu haray maadaama caruurtii kale ay baxeen ma fahansan in garoonka laga baxo kadib uu iska istaagay kadib ciyaartooyga Arsenal u dhowl caday wiilka oo waxay sameeyeen inuu sawir ku la galo waa ka fiiri waa ka ciyaartooy way iska fiiri kadib kaale bay yiraahdeen kaale sawirkan la galay bay yiraahdeen waa wiil yar oo aanu garanayn marka caruurta kale la socdo ay baxaan in iyagu la raaco wuu fahmi kari waayin markii sawir la galo ilmaha yar gacanta laga soo qabsado way iska ordaa garoonka way ka ordaa markii sawirka la galo kadib oo way baxaan ciyaarta la baasirabo mid kan yar wuu istaagay kadib iyagu way cumaamadeen armuu burhaanidin xalay Anton Martial wuu garanaya sida Manuel goolka looga dhaliyo markuu Premier League u imaanayba sidan buu ugu shubay Manuel isagoo Liverpool ka tirsan xalayna waa kay sida ugu shubayo kulay waxay ku ahaayeen ciyaari xalay dhacay iyo waxyaabii laga bartay bal wararkiina maxaa maanta kamid ah Barcelona way soo bandhigtay waliba garoon furan oo aanu dadna joogin bay ku soo bandhigeen ciyaartoygooda lagu magacaabo Martin Braithwaite warinku fadhiya 16 milyan kulay ninkan wuxuu soo ciyaaray kooxda Middlesbrough ee Premier League ka ciyaari jirtay xal ciyaartoygu way soo qaateen Barcelona rasmi u soo bandhigeen oo waxaan la siiyay lambarka 19 baa la siiyo horta ninka waa nin xirfad badan qaab kubadda u baleejeynaya qaabku u ciyaaray sidiisa u ciyaaraba waa nin aad u xirfad badan waxaanu ciyaartooygu balan qaaday in Barcelona ugu soo bixi doono mas'uuliyadda dhanka goolasha ee laga rabo wuxuu leeyahay anigu waxaan ahay nin dheereeya oo aad u xirfad badan waa runtiiso ugu dheereeya nin kanu garoonku 2-3 buu ka dhigaya talaabo uuna xirfad badan yahay oo xaaskiisa uur la xitaa garoonku way joogtay oo sawir kala qayb qaadatay ciyaartooygan anigu waxaan is leeyahay Braithwaite inkastoo Barcelona yani aanu Braithwaite u qalmin oo yani Barcelona oo kale marka laga hadlayo waa koox weyn waxayna u baahan tahay inay ku tartanto ama ay garoonkeeda keento xidigaha waaweyn la wada yaqaano ee la wada garanayo waxay galaan waana lagu garanayn Barcelona lama kasay inay keensato yani aan la wada garanayn laakiin Barcelona waxaan is leeyahay ninkan Braithwaite anu waxaan is leeyahay ninkan amu Barcelona ka ciyaan is leeyahay anu ninkan basada diiran anu waa ka shakisanahay nimayahu ninkan anu waan ka shakisanahay waxaan u maleynaa ninkan wariyahan dabaalkan waxaan u maleynaa inuu Barcelona ka socdo u maleynayaan war dadka fiican ba Barcelona wareer mooyaane dadka galabgalku Barcelona ku toosaan anu waxaan is leeyahay ninkan Braithwaite ninkan armu wacdareeya anu ninkan mugta intaan ka arkaba igu filan mugtahay goosgooska markaan fiiriin kasto goosgooska wax la la isku keenay oo la naashnaashay ah laakiin waa wax rasmi la sameeyay hadda ninkan anigu ninkan waa ka shaqsanaa nimayow ninkan waxa u maleynaa inuu wax dareeman u maleynayaa aniga كلي برايدويت حالي والله صوب بنيجي وحنا نقضي عيارتو برشلونة لكن لجنتي دي هراء برشلونة كم فرح سنة إن عيارتو كان برشلونة صورته ولي بكح دي سيلة جنس نيجب عيار وردي عيارتو ولا قاعتي سوق يدو حرين هاي عيارتو الله ما أقولني سوق عتان لكن ريفالدو حلا هي أنت برايدويت كسوق هذا لا وحيد بولا هي إلا أمنو عيارتو كشرة برشلونة بي إلا ميسي عيارتو لغا سوق عتبيد بولا هي أنت عيارتو قال سوق هذا الله كلي برشلونة حالي وحي صوب بنيجي صحيح وعصبه برايدويت لكن أنا وحنا سلاي هاي برايدويت وأنا لقيت ميدا كو عياره هذا بيل ويام قرشوه هدي ميسي بدح عياره غريزمان بدح عياره برايدويت بدك عياره وبيل هدو وما تقانا haweenada qaar oo kale hadii laba midig oo Messi lagu daro waa sidii Neymar oo yaani Suarez lugta midig ku ciyaari jiray hal Messi bidixay la siiyay marka wax weeyaan hadii dadku isla wada bidixayaan wareer weeyaan ninkan waxaad nasiib ku leedahay lug midig ku ciyaaro dadka Barcelona joogan waa wada bidixay marka laga reebo Fatihada ku haray waa ku weerarka كلي حلو وكا برشلونة سيعود عصب صوب بنيجينو برايدويت كلي مالنت بري سبتيدو بعياري كريايو كلي ريال برشلونة ويبرد وذيني يعني برايدويت أنا وحن سلاي أرني كان وريان دبال كان أرمو قطر نقطة ما قلت هذا برد وريان دبال وكلا ويان هذا ما برد وذا تقان أذيك برد ما تقانيد marka nooc ceenkaas oo kale ciyaartooyga ceenkan oo kale inta la soo gato waxa weeyaan ma taqaan waalid arag ilaahay iska wax ka keenay bal iska soo geliya la iska leedahay macna ka hadii wax laga helayo bal iska sida original garoonka loo geliyo marka la yiraahdo Liverpool markay warto caleeda arkuy weeyna wax markii dadka ciyaartooyga weyn aad wax ku weyso wala original mugta arkan iska geliya qadi wax laga helayo wax laga helayo kana waa wariyaan dabal oo kale wax leeyahay arkaan ya qaysuwar soo maqan yahay dib wax laga helayo bal iska geliya qadi wax laga helayo nooca ciyaartooyga kaas wax laga helayo hadii ay warku yahay wariyaan dabal waxaan u maleynayaa anigu wax dareeyaan maleynayaa ciyaarayna sidoo kale waxa maanta weyn Robin van Persie ayaa aad u amaanay ciyaartooyga Bukayo Saka wuxuuna barbardhigay sida ciyaartooyga Ryan Giggs, Paul Scholes iyo Dennis Bergkamp ciyaartooy kale weyn wuxuu leeyahay kaliya ciyaartooyga weyn ayaa caawin kara leeyahay goolasha cinkan oo kala wuxuu ka yaabay goolku xal caawiyay ninka lagu magacaabo Bukayo Saka
oo ninka ugu caawinta badan Arsenal iyo kan ugu caawinta badan Europe League oo cunug ma cunug ilmo ka weyn wayaan bariyaan warar waxa socday Liverpool inay sugayso ama rajaynayso in la siin doono horyaalkii 2014 ee Man City ay qaadis Premier League hadii Man City dacwo kale lagu soo ogo in horyaalka laga qaaday bay filan iyagu la siin doono laakiin macallinkii waqtiga Liverpool maamulay Rodgers ma qabo in midaas macquul ay tahay anu u maleynay uu leeyahay in Liverpool la siin doono horyaalkaas buu leeyahay ma u maleynay uu leeyahay balse ogow kooxdii kubadda cagta Juventus hadda koor iyagu garsoorayaasha xulan jiray ciyaaradu u dhexaadinaya iyaga ba xulan jiray dooqan jiray si iyagu ugu garab ugu siiyo ciyaaraha waxa laga qaaday laba horyaal markii Serbida loo celinayay kii 2005 cidna lama siin balse horyaalkii 2006 waxa la siiyay kooxda kubadda cagta Inter Milan marka macalinkoodii hore Liverpool xilliga maamulay Rodgers ma qabo in Liverpool koobkan la siin doono xitaa Van Persie wuxuu amaan ugu qubay ciyaartooyga Bruno Fernandes wuxuu leeyahay ninkan tayadiisu banaanka way taalo wiro tayadiisa nin ay banaanku taalo wayaan buu leeyahay ninkan wuxuu yahay durba ayaan aan ka arkaynaa buu leeyahay waa ciyaartooy aan caadi ahayn waa ciyaartooy weyn buu leeyahay ciyaartooyga weynna waxay ku sheegayaan durba waxay yihiin isla ciyaar gudaheeda sida uu kubadda u baasayo sida uu ciyaarayo sida uu karoosayo الله محد كل راح يسني ولا مركع داون يسو عيارتو يسدا برونو فرنانديز وكلا برونو ستيل ولا أمانة يا عياريسو ما حماني كان هذا في عيه لكن أول هالجرافيس عيارتورو ماجسترو عياري شربوا حي آد ولا عين حالي سيرش روميرو كوبادو بنان كوصوب حي إلا قد القاضي وحكى له مثلا إنه عيارها إيو مانتا لين الميسي دقال بوكولتشرا ولي برشلونة حل عيارتوجو وخبوا إن برشلونة ولي تور بدن أي نوعين كوجولي سك عيارها كمليجو أو ميسي وحوش جاي كوعها يوفنتوس ما كوعده كوباد عقد ليفربول ريال مدريد إيا باريس شرمني يجين سنة عيارتك كوع عادي كوجولي سكر كمليجو مرة لو حلقوا يدي برشين سنة كان كمليجو يعود لنا قادنا وحوش جاي برشلونة ما أمه خطو inay haysato awood ku filan ay ku guuleysan karto tartankan ugu guuleysan karto malaha buu leeyahay mugtaa Brexit lama rabo beel lama rabo mugtaa adiga buuq iyo qayl iyo qajac lama rabo wax iska cad waxyaabaha qaar waa wax la arki karo muuqdo wayaan Lionel Messi wuxuu qabaa in Barcelona sanadkan awood ay u hayn ku guuleysiga ciyaarahan tartanka Champions League مقتنع خوف كحو وتايري كرا رسك علينا والله مرك خار لا مرمو والله دود هل اسك دودو لكن waxa weeyaan Barcelona sibay ku lahaan doonta hadii Champions League helayso maxay leey Messi ayaa wuxuu qabaa inaysan Barcelona awood ku filan u hayn ku guuleysiga ciyaarahan Champions League dhanka xataa Messi wuxuu dagaal kala dhaxeeyay ninkii madaxweynaha Barcelona Jose Maria Bartomeu inuu madaxweynaha Barcelona waa fishinay waa ciwubay maxay yeelay isagoon kooxda ciyaartooy fiican u soo gadayn buu haddana wuxuu ku darsaday maamulkiisu wuxuu ku darsaday inuu ciyaartooyga Barcelona sida Messi u aflagaadeeyo warar ay waxay sheegayaan in shirkadu uu ninkan heshiis la galay madaxweynaha Barcelona si loo aflagaadeeyo ciyaartooyga waaweyn sida Messi oo kale Jared Piqué oo kale Iniesta oo kale Guardiola oo kale Javi Hernandez oo kale maxaa loo caynad kasma taqaana wuxuu ka baqayaa doorasho madaxweynenimo isagoo isku soo taagayo haddii iyagu midkood uu la soo tartamo in uu ka qaado ka baqaya sidaas daraadeed shirkadu uu heshiis la galay oo uu ka codsaday in ciyaartooyga qaar ee Barcelona soo ciyaari jiray kuwa hadda uu ciyaaro Messi ku jirina inay aflagaadeeyaan ee ceebahooda ay badiyaan moogta ninka madaxda ah ee tartamayo kale marka ceebiisa la soo bandhigo kale codadku heli laha meeli doono marka madaxweynaha Messi arikaas wuxuu u leeyahay la yaab bay igu noqotay uu leeyahay warkaas waxaan ogaaday anigu markii hore waxaan jiray safar buu leeyahay laakiin markaan ka soo laabtay baan ogaaday buu leeyahay waxaan inay jiraan wax la yaab laba igu noqotay buu leeyahay warka fadeexada ee madaxweynaha laga soo sheegay uu leeyahay la yaab igu noqotay uu leeyahay markii aan imid ayaan ogaaday arrinkan buu leeyahay xitaa Messi uu isleeyahaba ninkan armuubi ka dambeeya waxa kan marka warar ayaa sheegay madaxweynaha Barcelona iyo ciyaartooyga Barcelona iyo mas'uuliyiinta Barcelona min isku kacsiin oo dagaal weyn baa meesha ka jira kab siyaasadeed baa la waxan howlahan waa howl siyaasadeed Barcelona hawsheeda Bruno waa ka baxday oo madaxweynaha wuxuu rabaa inuu ciyaartooyga ceebeeyo la aflagaadeeyo warbaahinta qaar buu la galay website qaar buu sameeyay oo uu la galay uu ka codsaday in la caayo oo marada laga rido oo la ceebeeyo ciyaartooyga Barcelona sida Xavi Iniesta Lionel Messi Gerard Piqué ragga qaar uu isleeyahay xilka madaxweynenimo way ka toori karaan ayuu isleeyahay buu hadda bahdilaya hatta hadii doorasho madaxweynaha ay noqoto wuxuu isleeyahay armayagu ka qaadaan Lionel wuxuu leeyahay anigu waa la yaabana arrinka kulay wixii jir way soo bixi doonaan buu leeyahay Leo hatta uu shaqsan yahay wuxuu u arkaa in arrintan madaxweynuhu ka dambeeyo marka Barcelona waa meel balaayi iyo dhibaato ka dhex taagan tahay marka nimanka ma suuq inay galaan ciyaartooy ku iibsi waxaas ku ma ku jiraan nimanka tooda haysataba maalin Nabi Dali Messi isku dhacay haddana waa ka madaxweynaha ciyaartooyga ceebeenayo hatta Messi ku jiro isagoo fiirsanaya danihiisa gaarka ah ee doorasho madaxweynenimo waxa kale oo miisan inuu ciyaaraha iyo maanta ninka la yiraahdo waa ciyaartooyga Atlanta toddobaadka waxyaabo laba ay sameeyeen baa leeyahay si ay kooxdooda u badiso ciyaarta Champions League ay kala ciyaarayeen Valencia maxaa la sameeyay wala isbuucan dukaamadii baa la soo xiray caruurtii baa iskuulada ka baaqday hatta maayarkii magaaladu ayaa hatta ku baaqay
ayaa xitaa garoonka yimaaday oo ciyaarta wax ka daawanayay waliba maayirkii magaalada baa xataa ardaydu u sheegay in iskuulada xataa ka joogsadaan aniga baa qaad u leeyahay mas'uuliyadeeda aanu sharaxna ciyaarta dukaamadii baa la xiray oo caruurtii baa iskoolka diiday oo madaxdii baa timaaday waxay ahayd Atlanta sanad ay ku riyoonayso tartanka weeyaan iyagoo 4 gool ku garaacay Valencia habeenka magaalkii baa la soo xiray baa lagu leeyahay waraynu sheegaya William in Tottenham uu ku biiri doono haddii Chelsea aynu u kordhin heshiiskiisa hadda kooxda uu kula joogo waxa kale oo miisan in ciyaaraha tan markii Mourinho uu Chelsea tababar u noqday uu Tottenham tababar u noqday baa lagu leeyahay Chelsea iyo Tottenham markaan isba barbar dhigno Chelsea waxay adkaatay kaliya 4 ciyaarood halka Mourinho kooxdiisa ay adkaatay 8 ciyaarood 3 jeer bay gashay kooxda Lampard halka Mourinho kooxdiisa ay 2 jeer baraje gashay Chelsea 7 jeer baa laga badiyay halka Mourinho kooxdiisa 4 jeer laga badiyay macnuhu taas waxay ka dhigan tahay Mourinho kooxdiisa Tottenham ayaa ka fiican kooxda Chelsea markuu Tottenham Mourinho u tagay baa leeyahay burhaanti Chelsea wuu way qabal lagu leeyahay tani markuu Mourinho tagay Tottenham baa lagu leeyahay Chelsea waxa ku dhacay guuldaro badan baa ku dhacay bareejo badan bay galeen guulo yar bay gaareen taas waxa ka fiican kooxda Mourinho ee Chelsea oo Tottenham oo 8 bay badiyeen 2 bareejo galeen 4 jeer bis baa laga badiyay waxaana helay dhibco ka badan kooxda Chelsea oo 6 iyo 20 dhibcood halka Chelsea 5 dhibcood ay heshay marka Chelsea Mourinho baa burhaantoodii wiiqay oo tani markuu yimaado iyagu wayba ka taala xataa warar ayaa sheegaya in kooxaha Talyaaniga Juve Inter isku haystaan saxiix ciyaartooyga lagu magacaabo Palmieri oo ka tirsan kooxda Chelsea waliba aan boos ka haysanay marna wuxuu ku baaqaya in Real Madrid lagu soo daro ciyaartooyga lagu magacaabo Casemiro Andrade Neymar wuxuu leeyahay waxaan jeclaan lahaa inuu Neymar nagula soo biro kooxda kubadda cagta ee Real Madrid xilli shalay uu Messi lahaa waxaan jeclaan lahaa inuu Neymar nagu dib nagu soo laabto ciyaari iyo maanta barnaamijkeeni waa naga inta nabadgelyo